meeyarka degmada Qoryaale Bila Jaamac Muuse ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeedhay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ku sheegay meeyarka Qoryaale inuu dhibaato ku hayo bulshada deegaankaasi. reer Soomaaliland waynu is ognahay waynu isnaqaanaa qof maanta la caburinaya haday saxaafad tahay iyo haday nooc doorashadiisa ay tahay cid uu codeynayo waa ogtiino ma jirto cid aan anigu caburiyayna ma jirto dadka markuu Xirsi arkay inaan taageero aanu ku haysan deegaanka Qoryaale ayuu wuxuu isticmaalayaa gudoomiyaha Qoryaale dad caburinaya miyaan caburin karaa qof waliba gacantiisa waa u xor anigu mas'uul baanahay maamulkii dawladda ee meesha joogay baanahay xisbiga kulmiye waanahay laakiin qofna xorriyada kama qaadi karo. sidoo kalena gudoomiye Bila Jaamac Muuse waxa uu fariin u diray salaadiinta cuqaasha iyo odayaasha deegaanadaasi oo uu ku baaqay inay ka warhayaan colaad uu sheegay in deegaanadaasi uu ka hurinayo hogaamiye Xirsi Cali Xaaji Xasan. waxa soo baxday inuu Xirsi ka hadlay meeshii dadkii uu burca ka soo raray uu shirka ugu qabtay arrimaha uu ka hadlay qaybo badan bay lahaayeen waxa kamid ah adinkaygan igo'ay waxa kamid ah taageero aan jirin oo dad uu burca ka soo raray uu yiri waa taageerayaasha degmada Qoryaale isagoo been sheegay waxaan leeyahay adinkaygan qadar ilaahay ayuu ahaa madaxweynayaasha la toogtaa wasiirada la toogtaa arrimaha iskood isaga dhacay qadar ilaahay ayaan u haysanay oo ay aan maalinkan maanta ay ahayd dadkii arrinkaas igaga yimina waanu ka heshiinay waan ka samray waa la iga dhaahiyay wax dhiba oo maanta ka taagan haba yaraatee ma jirto Xirsi xabaali malka durduro isaga soo faarfaaray maanta wax la dhameeyay oo hore loo dhameeyay isaga soo faarfaaray marka hore dawladda Soomaaliland madaxweynaheeda xiriiryaha qaranka wasiirka arrimaha gudaha barasaabka gobolka Togdheer taliyaha qaybta gobolka Togdheer waxaan halkan ku ogeysiinayaa in Xirsi colaad deegaanka ka iclaamiyay colaad wax bari hore dhamaaday uu dib u soo faarfaaray oo aan arrinkooduba oo lagu kala bari hore lagu kala samray inuu isagu maanta dib u soo faarfaaray waxa uu ka wadaana ay tahay ee ku kalifay inuu colaad ka huriyo deegaanka saakadan wallahi wuu jiraa dhaqdhaqaaqi colaadeedu abuuray saakadan wuu jiraa isaga xasarada iyo xariga xidhay waa shirqool caadiya waa aragtaan wuxuu TV-ga daawada website-yada daawada wuxuu yiri dadkii hore ku dilay weeye imikana way ku dilayaan arinku afka hadalku waa nooca dadku waa kuwii buu yiri waxaan halkan ka soo jeedinayaa waxgaradka aqoon-yahanka cuqaasha deegaankaas suldaanka dhammaan cidii deegaanka degtay Xirsi colaad buu ka huriyay degmada Qoryaale nin walowba ogow saakadana dhaqdhaqaaqeedu wallahi wuu jiraa Xirsi markii uu taageero ka waayay deegaanka Qoryaale ayaa waxa uu door biday inuu dad burca ka soo raro oo shir ugu qabto Qoryaale dabadeedna colaad ka abuuro deegaanka Qoryaale waxaan cid walba u sheegayaa wixii ka dhaca deegaanka Qoryaale ee deegaanka ka dhaca in uu Xirsi mas'uul ka yahay waxaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wixii uu qabtay ayaa ugu mahadnaqayaa isaga de wasiir buha lacagta madaxweynuhu siiyay qaranka laha wax allaala waxaan ugaga hayaa ma jirto waa la yaab inuu maanta isagoo hantidii qaranka ee dhakhtarka leegu qabatiyay isagu sheegto waa wax la yaabo way madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland maalin sanadkii walba intaas oo qof oo ama hadhaawacmaan ama xanuunahay ayuu diraa kuwaas u barana kamid aha Xabiib Ciga Xasan Universal TV magaalada Burco.